لانتي بصاحبي الملك الدنيا دافيده kaga sugantiin salaam boqortooyin hawadii soo marnay waxaan leeyahay ku soo dhawaada channelkeena iyo walaashin la kishow aan hadda channelka ku cusub tahay markii koobaad in soo boqotaan inaad subscribe saartid aad iyo aad baad maasan tahay hadda macaan waxaan noo wadaa runtii waa sheeko aniga aad iga xanaajisay halkaan aan caaw soo fadhiistay runtii waa wiil Soomaaliyeed oo YouTuber magaciisa leeyahay CK oo aad uga xanaaqay runtii oo inan Soomaaliyeed oo walaashi ah oo talo dhalatay oo kala ah runtii waxyaabo uu ka sheegay aan boqosolkii tiqtiqsiga ku sameeyo ilaahay yaab ku keenayo gabadhaas waa gabadh fanaanad ah fanaanadii runtii dadka fanka ku jirana badana waxa isticmaalaan in jirkooda qaawiyeen amba ay soo qaawiyeen hay soo qaawiso in waxay leedahay haduu qofkii qaldamo lala taliyo lagu raa walaal waxa iska dawaa kugu qaladay adoon muuqaalka waliba soo qaadan وليبنا كاغدانك adoon nin rag ah inaan soo qaadatid oo ku qoqosashid muuqaalkeed iyadoo qaawan runtii sharaf darey ku tahay hadaba saxaabay bal muuqaalkan ila arka saxaabay ninka weyn wuxuu ku dhacay soo markiisiin aan ku soo raacday mar kale indhiinaydii macalina ويدك أركي رنانتي آد بان ولا يابا يعني وانا كو قصلي وانا لا يابا ورتو كو قصلي وانا كن حي رنانتي وانا كشخصيادي نينكا وين انت لايك قبر قاون ام قبر جيركيد بنان yahay يعني كرسي قبو uga biibaya ka dhacaya kursi qabo ka dhacaya waa maxay sababtu bal muuqaalkan ku sii socon waxa ma arage ana wax arkay bal muuqaalkan ku socono ninkaas wuxuu sameeyay إلهي وحقا كنيني كابسول عملي إلا خسيسي عليا الليبان جامعه وعليا إنديتي كسانكا ديغا سعيا horta aad iyo aad baan uga xumaay siigi horta qof fiican weeye maxay tahay nin aan maanta horta xumaan u quurayana maaha laakiin muuqaalka markuu caaw soo dubay amba uu soo galiyo maanta runtii aad baan ula yaabay gabadhan oo qaawin oo adiga kula dhalatay maxaad ugu qoslaysaa aad kalba kursi uga dhici naagaa kale qaawin sheeyaha mid soo qaadatid mad ku qosashada dad doonaysid alaab qaawin iyo waxa daawatid ma gabadh walaasheed qosol iyo fiis ka raadinaysaa ما تقبل لا تريسد ما تراد ولا الموقال كان اسكت اشرفكم ما هي بالله عليك ما حين ضد ولا لا ما حين كان هي ولما ولا تنمدي Soomaalinimo barta iska dhig halka iska ka turba dad islaam oo diinta islaamka wada sheeganaya ayuu nahay dhamaanteynba meel kasta joognaba dad islaamka wada sheeganaya ayuu nahay mid cadaan iyo mid madowba marka waa maxay sababta inaan qaawan ugu qosleeyay بل أصحابي أنا دلي يا بنتين يعني واحد زونس إن أنت المحاشضي أنا واحد يشضي يعني إن كاس عقل جيس إنتو لاقي هاي أنتو هرت سيكي كمو أوجين إنه عقل يرجع هاي أم بده كمو أوجين محتي إنه ساي هاي دور مرة واحد كله هرانا وان أركي لكن واحد يسرون ترى مرة ده واحد كله يرجعين بابو كواضع حسلي هولي أنا مرة بقول نقول واي واحد وجانا أنا رجع ساوي سوق صريح عندي لكن وكوسي صعداء إن كستو قاون dabadeed wax ka sheega inaan kasto soo jeedana naaseed wax ka sheega marka si kee ma u sharaf asxaabay ma u sharaf ba mise oo akhlaaq mise oo karaamo mise oo xishood mise oo walaaltinimo mise oo islaamnimo bal waa maxay magaalada ilaahay oo dhan wax la duubo miyad ka soo weyday oo inaan hayn qaawan runtii horta moolka iga war kala ba dambeeyay runtii intuu ugu soo ceshanayaaba inantu bal heestan asxaabay aan horta heesta bal yara wada eegno bal inta inantu saa wada qaawan tahay iyo inay halka clip saa u qaawan tahay heestan yara wada eegina waa laba jeer bay kala duubtay marna iyadoo shaatigan qaawan xiran marna iyadoo dirac iyo sharmadii iyo huwano caadi ay soo duubtay inta wanaagsan muxuu soo qaadan waayay duu fanaanada doonayo bal inta wanaagsan muxuu soo qaadan waayay maxaa inta xun soo siiyay sababtu waxa inta xun ugu soo qaatay halkan baa lagu raadinaya qosol ba bartan lagu raadinaya anigu waxaan ku oran arta runtii maankaaga maanta halka ku gaartay si keeyo inaad maxay tahay
inaad inanta Soomaaliyeed amba inanta Islaamka ah halkan maanta waanin lahayd way waa walaashayna qaldantay qaladna ka dhacay qof kasta uu qaldama qaladku waa ka dhacaa adiga ganimka wad qaldantay laakiin maxay tahay inaad hadana talo iyo waano iyo tusaale aad siisid oo halkan maanta u soo fadhiisay tirada walaashay waxaan ka codsanayaa maadaama tahay gabadh Islaam maadaama tahay gabadh Soomaaliyeed maadaama tahay gabadh af Soomaali ku heesisa maadaama nahay gabadh magaca Soomaali aan wadaagno kaba si durgo maadaama nahay dad magaca Islaam amba diinta Islaamka ku wada jira kana wada mid ah inaad maxay aad waanisa tirada walaal waxaan iska daa sharaf xumo ku tahay waxaan ka codsanaynaa inaad mar dambe aanad waxyaabaha noocaas ah aanad ku soo heesin amba dhar noocaas aanad mar dambe soo xiran ayaan ka codsanaynaa inuu yiraahdo ay ahayd CK laakiin maanta in soo daawada muuqaalkii haagay ay saas ku torturaya de wax kale ku qosashid miyad weyd adu dharka soo dhiga nin rag oo qaawan ma soo qaad maxad gabadh dumar qaawan ka soo qaadansa mid kale ragin badankiina waxaad barteen inta YouTubers kan la hadlaya inaad habla aad soo qaadatiin aad habla wax ka sheegtiin aad baan u nacay anigu wallahi runaantii horta in maxay tahay habla Soomaaliyeed fiis lagu raadiyo amba habla qaban halkii talo baahay inta halka soo fadhiisatay inagu YouTubers hadeen nahay waxaan halkan u fadhinaa in dadka xumaanta ay waxaan kule ka reebno markastana qaybaha wanaaga aynu kula talino oo rano heblaay way qaawantay waxana iska deyso hebel saan buu yiri saan iska dayo heblaay hees xun bay soo qaaday wayna hees iska bedeshay adu qof kasto xun inay la talino inkastoo nugu jiraan dad xumaanta iyaguna ka shaqeeya been abuura ay nugu jiraan haddana inteena wanaagsan ee wajiyadeena la arko sida tooska loo arko markasta waxaan jecelahay dadka dhiirigelino ay bulshadu daawato maanta ma waxaad keenaad kursi ka dhacday inaan qaawan aad ku soo ceeshatid hoogay kaniin bays waxaas wax lagu hadlamayay Ilaahay baan kugu dhaariyay bal waxaas wax lagu hadlamayay aniga horta dadka qaar baa qalad ii fahmaya laakiin qalad kuma hadlay maanta wax sax ayaan ku taaganahay siika inaan qaawan laabteeda ugu qoslo runtaan aad baan la yaabay maanta waxaan ku leeyahay dhigaan farasa u galiiban ku wax kala daayo wallahi billahi sharafna maaha hablaan waxaan ka codsanayaa billahi cala weydika arkaysa leen ku qosliyo maanta waxa ay ragu taqaldanta in la isku wada tagtay waxaan ku leeyahay la dhiirigelina iska daa waxaan ku qaldan tahay laakiin yadii qosli saar wallahi maanta waa leeyahay qoslo nin YouTuber ay ku qosla hees labaad qaawanay ku soo celinaya hoogay hayraahde hoogay ba ku soo gashay ونيو اسكو حشاد بان أوران لا أنو حمانا هيجا أركن وحمانا والله بلا أنا أتشيدين سي كده أنو من نعبي ويوتيوبر ده سبسكرايب تيسارين عن روانتي حسايو عن مركز ترى علينا نداوضه يعني بحياة وسوق النيو لكن waxaan aad u la yaabay aan ka yaqyaqsooday sidoo maanta u dhaqmay iyo maalmo hore ba soo dhaqmay haddana waxay sidibal iska dhaafo waxba ka hadlin adigu yee waxaan ku leeyahay hore iskaga sii dhaaf laakiin maanta uu adkeysan waaye aqliyan iyo maskaxiyan iyo damiir kuna u isiin waaye inta si kee daawada la igu saaraan iskaga tago laakiin waxa aan maxay halkan u soo fadhiistay in barsiikay aanu sheegay in waxana qalad tahay in kasto qof wax loo sheegi karay aanu hayno de waxaan ku leeyahay qofka wax garadka uu yahay haddana aqligiisa maanta uu ka kasay uu kuna keenay inuu inanka bal walaash hadduu ninsan ugu qosi laakiin maxaad sameyn lahayd amba adigu inanaad dhashay uu nintu kolba suum soo saaro waxaan ku leeyahay hoogay kolba kursiga ka dhaco bal maxaad sameyn lahayd adigu qofka waxa leeyahay waxa adu naftaada la jecesho walaalkaana la jeclo laga yaabo rag badan amba aabaheed amba adeeradeed amba eedooyinka inay kugu xiran yihiin inay ku daawadaan inay ka naxaan laga yaabo markaas waxaad ka soo qaadatay miyad aan horna kugu sheegay imkana ku sheegay dad doonaysa naaga qaaqaawan oo ku qosqosashid kuwa qaaqaawan ee u bareeray waxaan ku leeyahay wuxuuda saabanahan ku wada yaalaan soo qaado laakiin hablaha Soomaaliyeed waanasi tukasto qaawan halka soo furso waanasi wax tira inantaas waxaan ku leeyahay waasaysta waxaan ka codsanaa inaad waxaan ku leeyahay walaalay sameeysid hadii kala magac Soomaaliyeed ha naga ceebeen war inagu inaan isqabana xaq baan iskugu leenahay inaan isku hanjabnana xaq baan iskugu leenahay inaan isqaban inagu cidina ma qabanayso markaas rigiina baan la hadlayaa markasta kool maaha 2 3 4 5 maaha hablaha ku qaraabanaya fiyuuska ku raadinaya waxaan ku leeyahay waxay doonaan ku soo hadlaya bilaa calaag iska taa isku xishooda rag buu lahayn ka dhigayo waxaan ku leeyahay idinku kuwa dhishiin baa laga jaraya iyo hablihiina markaad inan kolba suum ku soo dhaweysid aad gurtid adaa laga jaraya wallahi billahi tallahi adaa laga jaraya amba ku kula dhashay amba ku dhashaa laga jaraya dan hooyadaaba laga jarin isku xishood marka billahi calaag isku xishood hablaha Soomaaliyeedna dhiga waxaan la hadlay mid kale hablaha Soomaaliyeed tala siinayno taladan siinayno waxa weeye sharaftiina ku ciyaarna billahi calaag
والله إن أنا عدي رجع إن كل هاي النتاد وحنا كله أساس كسوق قاوسين قف كستابو في سبين كله أنا يمكن قصريه محد ما أنت كلام سطتي السوق قاوسين الله الله محد ما أنت كلام سطتي إن ما أنت الوقوع شيء كستر الوقوع قصريات ما أنت كسبتي حبلي صومالي نعم مقعك قعيارته أنا نروح معنا هبلا صومالي أي نقدر هبلو حين إن كستو هبله إن هبلا شرف له إذا بالأخلاق له لقوة ضيضو هذا أنا من مدير باجته وضمنا قالوا كسر كرتي وحن كله هاي وحب أن فانسنين هذا أنا وحن كله بقول كيف بقول هبله إنه هبلا شرف له هبلا كرامة له هبلا حشاد له هبلا إدب له markaas waxaan u sheegayaa inaan dambe aan soo qaado YouTubers ka dib kale wallahi wax kala dhacaya inaan iskuma soo qaadan kartiin waan idin sheegay marka waa dignin aan idin siinay haddaan nahay hablaha Soomaaliyeed hana soo qaadan anaga hadda doonaysa wax qaaqaawin dadka soo gurtaadeer mid kale hadda aragtay inaan qaawin dawaa walaashay la tali oo waxad ayo naga asturo ku dhawaxaaga nacala ku taale ku dhasda laakiin dad ashan fa barash wala jiraya isku xishoodan waana iga talo boqoliyo ka tajarno ku celinayaa waxana la hadlay CK iyo inta la midka ah ee soo qaadata hablaha jirkooda ka ganacsata ina bad ka ganacsatay maanta muuqaalkaas intaas oo kun oo qof ku daawatay intaas oo lacagna way kaaga soo dhacday maxaad faa'iido markaa diinta islaamka maxaad soo kordhisay inaad wax ka riday mooyee aad baan uga xumahay waxaan kula talnay inamada walaalaha ah aan jecelahay waxaan ku leeyahay walaaltinimada iyo wanaaga iyo diintuba naga dhaxayso inaydan mar dambe waxyaabaha noocaas aydan ku noqon ruuxaanta igana raali haadaan si xun idin hadlay dad qalad ii faanteen iga raali haada aad iyo aad waan uga xumahay wallahi muuqaalkaasna aad baan uga xumaaday aad iyo aad baan uga xumaaday waliba si kee qosliyo dhacay markaan arkay oo inantii ku soo celay hoogay le والله نفتح قواتي والعير صار نسكون من مقع عليه جيب جمر بين سرير يا تاكو جيحتها مركز وحنا قاعد سنة إن أنت السوق بسنة مرة واد يمركوبات بورال بالله عليك مرتب بها وصانقان إلى بنكو قد أري مرتب بها وصانقان هتنوقال كي كده وتأذركتين أصحابتنا نحن قاعد سنة تجارسين أشير جريسين إذا كنا قاعد بدل ما سنتين أنت هبلا صومالية يقول حران أي دعوان سنة محلية هاي مركز تيدو كرجلية مركز تيدو كحمان تسكرهبا مركز تنقض كوي هذا ولا شيء قلدنت هاي كم تيجي وبص قرر ولا الوقت قلدنت واحد أضوع عين نور وهذا حق اسمه قرن واحد كتر ولا واحد قلدنت سكتة إنك هبلا إنك حشود إنه قلب هي إنك كرامة يوحنا كله هي إنه يعني كده يشوف إنه قلب هي لكن إنه هذا رجع حراوي إنك تان توم منشري إنك تان تنو شيء نبغى دوته منشري قاسين كتيرنا markaas astura ilaahay ka cabsada adduunka waa laga tagay qofna kuma harayo dadka fanaaniintan waxaan u sheegayaa fanku maaha qaawani fanku maaha inaad waxaan ku leeyahay alaabtaada banaanka keentid jirkaaga wax ku leeyahay banaanka keentid jirkaaga aad gadid laakiin fanku ha noqdo waxba hada duntada dad waxaan ku leeyahay adoo asturan soo hees isku dhiirigel inaan heer gaar leeyahay asturan isku dhiirigel inaan noqolad inta kaliya asturan ee lagu dayda maanta fanaanada ah isku dhiirigel dad YouTuber tahay adoo asturan aad YouTube-kaaga soo fadhiisatid waxa doonaysa ka tiraa adoo asturan ka baxdid inan kasta wax kasta qabanayso dad shaqo tagsid dad meel kasta tagsid waa in lagu daydaa adiga waa in jiilka ka dambeeya iyo dadka kula facaan dadka jaararkaaga ah ay kugu daydaan waxa kule libiska kaaga daydaan asturnaanta ah laakiin dad shaari surwaal iyo bahal yar halka jooga soo xidhan ka furta gacmaha iyo qaaqaaw tawa dhibaato intay daawan sanax soornaa inanta YouTube-ka soo duubtaa waxa yar halka jooga gashan taana kuna gashanina bulshada dhammaan mitalaya anigu maanta markaas waxaan ka codsanayaa fanaaniintuna waa la mid in waxyaabaha soo kala iska disiin hadalkan hadda nigu dheereeyay iga raali hada wixii fikri aragteen committee igu soo qora walaalkay CK-na balla taliyo waxaad ku tiraadeen committee ugu qoro waxyaabaha noocaas bal iska daa CK waxyaabo kale ku qosol kale miyad weeydi markaas aad iyo aad baad mahadsantii saaxiibayaal salaam qortayna wadanadii soo marnaya markastana sharaf iyo karaamo iyo xishood badiga mudantiin dad aan ku faarana waatiin runtii Soomaaliya oo dhan waan jecelahay anigu inay waxaan ku leeyahay ay heer gaadho noqdaan dad lagu soo hirto yaani lagu dayda noqdaan aad baan u jecelahay inagu qaladka iska qabanana waan jecelahay markasta jidka toosna wanaaga inaan isfarnana waan jecelahay wax kasta xumaanana in iskala talno waan jecelahay aniga laftarkayga hadaan xumahay maanta ila soo tirsin xumaana ma qaadanayo markaas waxaan leeyahay هاي صاحبيال ولا ليال المثريال دعاء waxaan ku leeyahay gabigiin waa aad bad ma santiin qof weyn qof yar iyo qof dhaxaba inta qof ay daawanaysaba hadad laba qof diinada saddex qof diinada dad hal qof diinba aad man li salaam waxaan leeyahay sharaf kurkina haatay maca salaama